madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa qaabilay wafdigan ka socday dalka Djibouti oo booqasho ku yimi Soomaaliland si ay hambalyo ay uga sidaan madaxda Djibouti iyo shacabka dalka ay u soo gaarsiiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka la doortay ee Soomaaliland hogaamin doona 5 sanadood ee soo socda kulankan ay wada yeesheen labada dhinac waxa lagaga wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labadan dal ay wadaagaan ee sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labadan bulsho ka dhaxeeya markii kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta xog waran ku saabsan kulankan siiyay safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka Djibouti Ambassador Abdifataax Saciid Axmed iyo xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo ku hadlay magaca wafdiga Djibouti waxa noo yimid wafdi culus oo ka yimid jamhuuriyadda Djibouti runtii wafdi heer qaran ah oo runtii isku jira dhinac walba haddaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wafdiga madaxweynaha la doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii maanta si wanaagsan saad arkaysaan buu soo dhaweeyay waxaana runtii wafdigu ahaa hambalyo soo dhaweyn ah oo ka soo horeysay tii calaamasaarka ah taasoo ina tusayso jaarnimada walaalnimada labada dal xiriirka sokeeyaha ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii mid aan la iloobi karin runtii aan marnaba ahayn saad ka waraysan Djibouti waxa naga dhaxaya jaarnimo walaalnimo afkii waxyaabo badan waa dad dega labada dalba runtii haday noqoto Soomaaliland iyo haday noqoto jamhuuriyadda Djibouti waxaan runtii jecel waftiga maanta si fiican maanta iyaga booqasho gaar ah noogu yimid oo dawlad runtii gaar ah soo qaatay oo private waxaan leenahay ku soo dhawaada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan 10 maalmood dabadeed aanu nimid oo aan garanay in aanu tagno oo soo hambaliyano aanu ducayno waa intaan isku jirro xuduudka Soomaaliland iyo Djibouti waa 16 kilomitir waa dalka ugu dhow wada rumahan baqanahan diinahan dhiigahan labada dal isugu dhow in marka dadka kale aan ka soo horeyno aan ka soo hormarro calaamasaarkii bisha dabadeed dhacay waa de socdaalkeegana ayaa tilmaamaya intaan isku jirro labada dal isku jiraan madaxweynaha cusub ummadda reer Soomaaliland ay dooratay waan hambalyeena oon la soconay waana noo ducaynay waxaanu ilaahay uga baryeennaa in xilkaa culus loo igmaday ilaahay uu ku garab galo noqdana kii basbas iyo barwaaqo iyo horumar Somaliland gaarsiinayay waqtiga maanta aanu ku nimid waa mid ka soo hormaray boqoshooyinka caadigeeda la isugu yimaado waa mid walaalnimo weeye waa mid darisnimo ka kale ee calaamasaarkana dabcan waa Djibouti waa iman doontaa de wafdi rasmi ah oo official ah iman doona de madaxweynaha oo hambalyeena ummadda Soomaaliland waanu hambalyeena waxaan ugu hambalyeena sida quruxda badan ku dayashadu ay ku jirto ay tahay laga daydo cidnaana caawin doorashada heerka sare ah ee casriga hore oo la isku raacay in ay tahay tii ugu horeysay baba qaaradda Afrika ka dhacda ee ay suuro geliyeen inta dadka dheertiin baan leenahay idinkoo bil aqoonsiga cidnaana idin gargaarin gaadheen aqoonsiguna waa ka ummaddu ay aqoonsatay idinka ay aqoonsaday hambaliyaan idin leenahay